بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة ومالين جمعة قوبت وقلمدك وحان همبليينيا قوانكي والمرتياتكي حالي كالصوبحي saddexdii maamul goboleed iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir oo uu madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya goobjoog ka ahaa waxaan leeyahay hambalyo. maamulka galmudug wuxuu jiraa malahayga 7 bilood wuxuu ku guuleystay in uu masiirkii Soomaaliyeed ee ku salaysnaa doorashooyinka in lagu soo gebagabeeyo galmudug. ulay Soomaaliyay waa guul labaad waxaana aan u malaynayaa waa daacadnimada amaba ay tahayba. maamulka Puntland waxba oran maayo, gaaladaa wax tiri, Soomaali baa wax tiri, iyagii baa wax yiri, anigu maanta ku digan maayo. laakiin in iliidkii uu ka dhammaaday iyada waa marag madoonto. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. alxaqiiqa waxa 11 duhurnimo la qabanayaa xafladii geesinimada lahayd ee ay ka dhalatay hindisa doorashooyinkii qaranka Soomaaliyeed. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. galmudug nabad baan u rajaynayaa, galmudug khayr baan u rajaynayaa, galmudug Soomaalinimaan u rajaynayaa, galmudug inay halkaa ka sii wado Soomaalinimada ayaan u rajaynayaa. mar labaadna waan u hambalyaynayaa madaxweynaheeda, shacabkeeda, golaheeda wasaaradda, golaheeda baarlamaanka, intaba waxaan leeyahay hambalyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.